الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، هل كان barta YouTube-ka ee hoyga liibaanta ayaa toos nooga daawanaysaan. taariikhdu waa 10kii bishii shanaad 2021. taariikhda hijrigu waxaa weeye 27dii bishii Ramadaan 1442. maalinku waa maalin isniin ah. waxaanu halkan uga hadli doonaa hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka raadi noqdo axkaamta zakaatul fidriga, qaabka loo bixiyo, inta la bixiyo iyo faahfaahinteeda oo raacsanaan doonta hadduu Ilaahay idmo, oo maqal iyo muuqaalba ah ama practical ah qofkii u yaqaanaba. zakaatul fidriga waxaa waajib ah in laga bixiyo qof walba oo nool oo naf ku jirto, ama naftiisa inuu iska bixiyo ayaa waajib ah, ama maahan qofka weliga u ah ayaa waajib ah inuu ka bixiyo. shuruudii haddii la helo ay ku waajibi lahayd. qof walba oo kulansaday ilbiriqsi ka mid ah bisha Ramadaan iyo ilbiriqsi ka mid ah bisha Shawaal waxaa ku waajibaya in laga bixiyo zakaatul fidrigi ama uu iska bixiyo asagu. ilbiriqsi ka mid ah oo maalinka Ramadaan, tusaale ahaan oo kaleeto hadduu qofku dhasho gabal dhaca xilliga ugu dambeeya oo qorraxdu ay dhici rabto, haddii uu dhasho maalinka Ramadaan ugu dambaysa uuna noolaado ilbiriqsiyo ka mid ah ama hal ilbiriqsiyo ka mid ah bisha Shawaal maqribkeeda ugu horeeya, waxaa waajib ah in laga bixiyo qofkaas. xitaa haddii uu dhinto zakaatul fidriga in laga bixiyo ayaa waajib ah. qofkii sidaas oo kaleeto Ramadaanka soo noolaa dhintay asagoo ay waajib tahay in laga bixiyo, oo tusaale ahaan oo kaleeto wuxuu dhintay markii Shawaalka oo dhashay habeenkii ugu horeeyay oo Shawaalka ayuu dhintay, waxaa waajib ah in laga bixiyo. tusaale kaleeto hadduu ninku soo guursado haweeney Ramadaanka maalinka ugu dambeeya oo uu tamkiin taama laga helo gabadhii, waxaa waajib ah hadday Shawaalka gaarto in laga bixiyo zakaatul fidriga. ninkeedu wuu ku waajibayaa inuu ka bixiyo gabadhaas. waxa la bixinayo waxaa weeye waa saac raashin ah oo ah mir beermi karta. zakaatul fidriga iyo kafaaraadka dhammaantood oo cunto waajibta haddaad shareecada islaamka ku aragtid, cunto karsanna kuma baxdo, cunto la shiidayna kuma baxdo, wax dab uu galayna kuma baxo. tusaale oo kaleeto burkii kuma baxo zakaatul fidri, kuma baxo kafaaro. waxaa kaleeto uusan ku bixinin saambuuskii, baastadii anwaacdeedii kala duwaneyd, ama baasta dhaadheer ha noqoto ama baasta makaroni ha noqoto. waxaysan ku bixin oo kaleeto canjeeladii kuma baxdo, muufadii kuma baxdo, waxaas oo dhan kuma baxdo. waxa ay ku baxdo waxaa weeyaan mir nool oo la beeri karo. bariiskii oo qubkiisii wata, qubkii lagu beerayay, bariisyadan qaawan hadeertaan oo aanan qubka wadanin, qubkoodii laga siibay, ama galkii uu ku jiray. waxaa tiraahidba khilaaf baa ku jira, ma ku bixi kartaa mise kuma bixi karto. waxaa kaleeto la mid ah galeydii, masagadii, qamandigii, waxaas oo dhan way ku bixi kartaa. digirtii. waxaa shardiga kaliya in xoolaha aad bixinaysid uu yahay quutul qaalibka magaalada aad joogtid. quutul qaalibkana waxaa laga wadaa waxa magaalada aad joogtid sida badan laga isticmaalo. Soomaalida hadeertaan waxay u badan tahay inay isticmaasho bariiska, ayay u badan tahay. waxaa kaleeto laga isticmaalaa geyga Soomaalida galeyda ayaa laga isticmaalaa, masagadii ama haruurka wax loo yaqaan ayaa laga isticmaalaa, anwaacdeeda kala duwan. mirahaas ayay ku baxdaa zakaatul fidrigu. waxa qof walba laga rabana waa saac, kama yara kamana badna.
saacu insha allahu tacaala hadduu ilaahay ka raali noqdo maantayto muuqaalkiisana waan arki doonaa waxaan kaleeto arki doonaa inta cabirkiisu yahay haddaan muuqaalkiisa ku hormaro saaca waxa la dhaho waa bahalkan alwaaxan ama maahane ushaan waxa laga sameeyey ayaa la dhahaa saac gudihiisu wakaas ilaa intaasuu leegyahay dhinacyadiisa iyo qaarkiisa dambena waa intaas saac bahalkan ayaa la dhahaa isagoo bir ana waa la helaa oo dadka qaarkood way haystaan inkastoo geyiga Soomaalida aan laga isticmaalin laakiin carbaha ayaa laga keensadaa asagoo geed ka samaysan sida kan anigu hadda aan hayo kaleeto aan gacanta ku hayo asna waa la isticmaalaa Soomaalidu ma taqaano hadda bahalkan oo cabirkiisa ayagu kuma yaqaanaan waxna kuma cabirtaan miisaan ayay isticmaalaan ama kafadahan dhaadheer oo carabka leh ha ahaato ama ma ahane kafadahan fadhiyaha ahaadaan oo fadhiga leh ama ma ahane midkan dheer oo birta la suro oo saacada leh ha ahaado ayagu waxay isticmaalaan miisaan ay isticmaalaan Soomaalidu waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga mahadinaynaa oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala na waafajiyay inaan bulshadeena u soo gudbino shay ay wada yaqaanaan oo cabirkiisa lagu ogaan karo saacu waxa uu yahay mar walbana ku agyaala xilli walbana aad heli kartid waxaan ku cabirnay oo aan juhdi badan gelinay sidii aan ku heli lahayn shaygaas wuxuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala na waafajiyay in aan ka dhigno shaygaas Soomaalideena u soo gudbinayno iyo caalamka kaleeto in uu noqdo gasacaan yarka ama daasadan ee loo yaqaano CBC loo yaqaano ama gasacada qumbaha ama daasada qumbaha waxa uu taqaanid bahashan ayaan ku cabirnay waxayna noqotay 7 koombo weeyaan saacu qofkii bixiya tan 7deed wuxuu toos uga bari noqday wixii laga rabay raashinkii laga rabay ayuu toos dimadiisa uga bari yeelay oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka rabay ayuu toos u gutay 7 xabo oo dhameystiran ma ahan 6 iyo bar weeyaan barkaas marka daasadaan oo buuxda waxa ka dhimanaanaya wax yar baa ka dhimanaanaya waxaas yarka marka inay wax khalad ka galay oo kaleeto oo markii hore ay miisaamaysay ayay ku buuxinaysaa sababta wax kasta ayaa ka dhici kara marka 7daas intaad wax yar oo sacabkaygaas camal leeg intaad ka reebi lahayd inaad iska buuxsid baa ku dhaanta 7 ayaa marka waajiba in aad bixisid sida fadliga badan 7daas miisaankeeda waan ka kaaftoonay inaan miisaano oo hadda kafadaynta halkan soo dhigan aan miisaano maadaama guri walba laga helayo gasacadan ama daasadan laga helayo una asagu iskiis u miisaaman karo miisaankan xitaa uu ka kaaftoomi karo oo qofku uu tan 7deed haduu bixiyo ay ka baxayso sakadii numberkeedu waa 7 ayaad bixinaysaa xisaabta halkaas ku qoran oo qalinka lagu xoqay baad ku garan kartaa 7 xabo oo tan ayaad bixinaysaa weeyaan hadda 7 xabo midana bixisid zakadii way ka baxday qof walba oo reerkaada kamid ah 7dan ayaa ka bixinaysaa adiga naftaada tan 7deed ilmahaaga haddaad 8 dhashay 8 xabo oo min 7 ayaad bixinaysaa adiga isku dar 9 gabadha aad qabtid ku dar 10 xabo min 7 aad bixinaysaa 7 xabo ayaad bixinaysaa oo daasadana waa haddaad 7 qof tihiin haddaad 10 qof tihiinna 100 xabo oo tan ayaad bixinaysaa weeyaan 7 baad bixinaysaa haddaad 7 tihiin tirada saxda waa tabtaas 7 qof 10 qof qofkii ah qoysaskiisu 10 yihiin 70 kaasoo bixinaya insha Allah ta'ala hadeertaana waxaan guda galaynaa qaabkii practical-ka ahayd ama maahane maqliga muuqaalka ahaa ee aad ku garan lahayd miisaankeeda waxaan miisaami doonaa anwaacda badanaa Soomaalidu isticmaasho bariiska ayaan miisaami doonaa waxaan cabiri doonaa sidoo kaleeto galeyda ayaan cabiri doonaa waxaan cabiri doonaa masagada ayaan cabiri doonaa intaas ba waan haynaa halkaan ay noo yaalaan waana cabiri doonaa haduu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka raadi noqdo waxaan ku bilaabaynaa galeyda ayaan ku bilaabaynaa danta aan ka leenahay waxa weeyaan inay bulshadeenu aragto si maqliga muuqaal ah ayna u hubsato shaygaan inuu 7 xabo yahay 7 daasadood inuu yahay ama 7 gasac inuu yahay inaan hubsano baan ka rabnaa maadaama aan heli karnaba inaan hubino waxaan bilaabaynaa cabirka ayaan bilaabaynaa
sidaas ayaad u buuxinaysaa gasaca yuusan haaf ka ahaanin waa inay raashinku ay ka koreeyaan gasaca waan ku shubaynaa halka ayaanu ku gadinaynaa kani waa saaca qofkiiba waxaa laga rabaa hal xabo tanna waa midii aan ku cabiraynay saaca maadaama aan qof walba u seeli karinin tan oo 7 xabo ah ayuu noqon doonaa saacu horeyna aan ugu sheegnay xaqiijinteedana hadda guda galeynaa waa saac halkii hal daasad baa hadda ku shubna وداسدي لبعض وحان كشمني واتي صدحات وحان هذا وانا كشمني واتي أفراد وحاد أنكو شمي واتي شناد وحاد أنكو شمي واتي لحاد وحاد أنكو شمي ugu sheegnayba midda toddobaad ma buuxdo oo waa haaf wax baa ka dhimanaanaya waan isla arki doonaa wax ka dhimanaanaya markaan soo shubayay wax yar baa ka dhimanaa halkaas oo kale ayay joogtay waxa waajibaya marka waa 6 tan oo kale to buuxda midda toddobaadna ay wax yar ka dhiman tahay weeyaan waxa waajibaya waxaan hadeertaan cabirnay galeyda ayaan hadda cabirnay waxaan u gudbi doonaa masagada ayaan u gudbi doonaa haduu Ilaahay idmo waxaan iska gadinaynaa midaan hadeertaan إن شاء الله تعالى هذا وحنقلنا مزجد أيان قلنا هذا إلهي مزجدو أيضا وحنون نقدون تا تضبط أيان نقدون تا أو سيدي تنو كلاتا قليدو كلاتا لحب بحدا يمد haaf ah oo midii ugu dambeysay toddobaad ah horeyna waxaan u sheegnay inay iska buuxisid inay ku fadli badan tahay si hadii hadhow ay wax ay iska ka daba mareen oo baasho ay si toos kugu buuxin oo kaleeto ay kugu dhameystirto haduu Ilaahay idmo waxaan bilaabaynaa masagada ayaan bilaabaynaa mar walba inay ku buuxdo ku dadaal baasha waa gasqi koobaad oo ku shubnay
وقسعي لبعض وأن كشمي وكيس الدحاب وأن كشمي وقسعي أفراد وأن كشمي وقسعي شناط وأن كشمي وقسعي اللي حاضر كشمي كم تضاد ووجدان وهاف وكو قدين الأمريكا waxaan hadda dhamaynay raashinka qaybtiisii labaad oo ah masagadii waxaanan ka dhignay 7 ayaan ka dhignay waa 6 buuxda iyo midkii 7 oo haaf ah weeyaan adiga maadaama aadan saaca haysanin oo aadan hadda toos uga cabiranaynin waxaa ku fadli badan waad arkayseen hadda markaan muuqaalka ku qabanaynay midkii 7 inuu haaf ah waad arkayseen waxaa ku fadli badan marka inaad iska buuxisid laakiin ma buuxinaysid oo sidii kii hore kaleeto tuuru ma yeelaysid ama dhowr yeelimaysid waa iska samaysaa midka 7 inaad ilkaha xitaa koos marisid waa iska ka banaan tahay maadaama aysan waajib ahayn inaad midkaas toos u buuxisid ay half kaas inaad ka dhigtid ilaayo qoraalkaas oo kale inaad ka dhigtid ama CBC dhexdeeda inaad geysid kaliya laga rabo waxaa ku banaan inaad midkaan 7 aad toos u buuxisid kuna fadli badan oo sadaqo ku baxday weeyaan xoogaa yar oo sacabkaas oo kaleeta inay miisaanka ka khalado aad bay u fool xun tahay in adigana qiyaamaha ay ku gasho way ku fadli badan tahay 7daas ayaan ka dhignay galeydii mana cabirnay bariiskiina waana cabirnay waa labada Soomaalidu aysan badana haysanin galeydii baan cabirnay masagadiina waana cabirnay bariiska waan iskaga kaaftoomaynaa maadaama
kuwan aan ogaanay inay 7 xabba yihiin bariiskana waan miisaanay waan cabirnay asagana 7daas oo kale unbuu noqday wax farqiga u dhaxeeya ma lahan waa gasacaan iyo gasacun kaliya waxa lagu shubayana inay ayagu kala waaweyn yihiin maahane isku mid bay noqonaysaa sida kiilada bariiska iyo kiilada galeyda isku mid ka u tahay kiilada masagada iyo kiilada bariiska isku mid ka u yihiin waa tabtaas oo kale kiilada sokorta iyo kiilada bariiska isku mid u yihiin 7daas koomba bay ku noqonaysaa haduu ilaahay insha Allah ta'ala والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.